Bismillahirrahmanirrahiim wacan oo wanaagsan dhagaystayaal saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo aad ka dhagaysataan naafic show aadahan oo kale waa 10ka bisha labaad 2026 wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa ka gaabsaday inuu si toos ah ugu jawaabo su'aalo la xiriirta in Turkiga yeelanayo hub nuclear ah su'aashan oo uu weydiiyay wariyaha intii lagu guda jiray waraysi ayaa ahayd mid si cad u taabanaysa mowduuc xasaasi ah wariyaha ayaa xusay in wasiirku xitaa xaq u leeyahay in uu yiraahdo faalo kama bixinayo si kastaba ha ahaatee wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ma uusan bixin jawaab cad oo ku saabsan arrintaas taas oo muujinaysa sida ay xasaasi u tahay dooda ku saabsan hubka nuclearka iyo amniga gobolka baro luqadda Ingiriiska maanta adigoo kalsooni sare isku qabo hadda waxaa la joogaa xilli Ingiriisku uu noqday luqadda ugu muhiimsan ee lagu shaqaysto waxna lagu barto laguna safro adduunka oo dhan haddii aad ku riyoonayso mustaqbal ifiya oo furan barashada luqadda Ingiriiska waa furaha ku horseedaya guul iyo fursado aan xadidnayn macadka barashada luqadaha ee Blue Screen Online wuxuu ku hayaa koorsooyin luqadda Ingiriiska oo ka kooban sida bilow dhexdhexaad iyo dhammaystir wuxuu yiri Mike my parents waalidiintayda are going waxay doonayaan to pack inay soo xirxiraan oo yacni soo baakadayaan some food xoogaa cunto ah there will be penalty waxaa la in kugu filan for you adiga too sidoo kale penalty waxaa la there will be waxaa jiri doona penalty for you too sidoo kale cuno kugu filan ayaa jirta cunaa meesha ka maqan macnaha thanks mahadsaned I will be back I will ahead wala soo gaabay contraction aan nuugsamay I will be back earlier marka I will be back waan soo noqon doonaa as soon as possible as soon sida ugu dhaqsiyaha badan as possible uguna macquulsan ayaan soo noqon doonaa iyo dhammaystir koorsooyinkan waxaa si xirfadaysan kugu baraya macallimiin xirfad leh iyadoo xoog lagu saarayo ku hadalka luqadda Ingiriiska si kalsooni leh qorista iyo akhriska si habboon oo sax ah maqalka iyo fahamka luqadda si qoto dheer xirfadaha nolosha iyo shaqada ku salaysan haddaba haddii aad danaynayso barasho barwaaqo ku horseedo ka bara Blue Screen Online oo guji calaamadda WhatsApp ee hoose wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi ayaa u sheegay Al Jazeera Mareykanka iyo Israa'iil wali waxay isku dayayaan inay soo weeraraan laakiin Iran waxay isku diyaarisay jawaab celin ku qasbaysa Mareykanka inuusan dib soo weerarin ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Iran